soo dhawaada saaxiibayaal fanaanadeen caanka ah ee qaada heesaha dareen kala deeqa afro waxay ka degtay jiida hore ee buuraha calmiskaad oo ay Puntland ka wado howlgalka ay uga soo horjeedo kooxda Daacish halkaasi waxay kula kulantay majaajilaysta caanka ah ee lagu magacaabo Farxaan Diraac waxayna soo wada qaateen ama ay soo wada sameeyeen muuqaal dareen leh oo runtii laga dheehan karo inay deeqa afro xiise gooni ah ku hayso la kulanka Farxaan Diraac haddaba waxaan isku daynaa inaanu baarno waxyaabaha ka dhaxeeyay deeqa afro iyo majaajilaysta Farxaan Diraac ka hor in aysan deeqa afro imanin gudaha waxaanu soo ogaanay in ay deeqa afro ay runtii waqti dheer ay xiriir la lahayd majaajilaysta Farxaan Diraac haddaba marka laga tago habkan cajiibka ay deeqa afro ay ugu dhigtay Farxaan Diraac taasoo ka muuqato jacayl isla markaasna ay noo cadeeyeen dad xoogaal u ah qisada labadan qof ee caanka ah waxaanu dib u baarnay heesaha ay qaadi jirtay gabadhan oo runtii ku dareensiinaya in ay qof maqan jeceshahay runtiina ay marar badan heesa la yaab leh oo dadku ay isweydiiyeen waxa ay ka wado ay soo qaaday haddaba heesahaasi waxaa ka mid ah heestan bal nala dhageysta haddaba heestaasi waxay cadeynaysaa gabadhu inay qof aad u jecleed isla markaasna ay iyadu diyaar u tahay inay u tagto haddaba qofkaasi waxaa la soo cadeeyay inuu yahay majaajilaysta Farxaan Diraac waxaa kaloo ka mid ah heesaha dareen kale ee runtii dadku aad isu weydiiyeen waxay deeqa afro ka mado ay qaaday heestan iyaduna ka hadlayso qof maqan dareenkiisa hello baby taasi kuma koobna bal hadda nala dhageysta heestan kale ugu dambeyn Farxaan iyo deeqa way kulmeen haddaba deeqa afro hore waxay u sheegtay in ay markana dadka cawaanta ay raacayso kadib markii ay isku dhaceen Farxaan Diraac balse sanada ay social media ka maqneyd deeqa afro waxay ku soo noqotay dalka waxayna ku nooleyd gobolka SSC haddaba buuraha calmiskaad ayay shalay kula kulantay jacaylkeedii ay haasaa wadaaga ahaayeen Farxaan Diraac haddaba Farxaan oo saaxiib gabadhan waa gabar Soomaaliyeed waa gabadh in adeerta khaasatan waa gabadh qoyskaaga oo hartiya gabadhan saaxiib ka ilaali inay u gasho sida ay horeba u sheegtay dadka cawaanta ah waa gabadhna adeerta ayada dhaqashiyo marka liigba kugu leh marka waxaan ku leenahay deelijanow nin oday weyn baa tahay qoftaasi aadan kugu ognahay oo ilaamada aadan ku saarnay